waxaan rabaa inaan u hadlo dad masaakiin ah oo xabsiga ku jira Soomaaliya oo dulman oo aan dambi lahayn laakiin dambi loo haysto lagu garaaco 24 saac marka sheeko yar oo waxa jirto habeen dhaweed qalbigayga ku soo dhacday waxa tartan loo sameeyay sirdoonka Soomaaliya iyo sirdoonka Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska marka tartan oo waxa ka dhaxeeyay waxa la yiri daqiiqada loo qabanaya waxay soo qabanayaan bakeele oo beer lagu deeyay marka waxa ku horeeyay bakeelaha waxa lagu dhaxdeynaa beerta qoladii soo qabatay saacada loo fiirin marka qoladii Ingiriiska ugu horeeyay bakeelii marka lagu sii daayay Ingiriiska waxay ku soo qabteen 20 mirir Mareykanka ku xigay bakeeliyaha lagu sii dhaxdaayay wuxuu ku soo qabtay 15 mirir Soomaaliya marka soo hartay bakeeliyaha marka lagu sii daayay halkii Soomaaliya way oroday 10 mirir waxay ku keentay dameer marka waxa la yiri waxa la sugaayay bakeelimo inay keenaan maxaa dhacaya la yiri waxaan markaas ay weydii wuxuu yahay ninkan markaas dameer kale weydii maxaa tahay markaas yiri bakeelaa marka dameer ma tiidmaya ma yiri maxaa dhacay war wuxuu yiri say igraacayeen aan bakeela ahayn inaan dhaha ku qasbana marka nabad sugidda Soomaaliya waxaan leeyahay garaacista u yareeya soo dameeruna bakeela